xarumaha ciyaaraha ee ka Playground Group waxay ku diyaarisay barnaamij cusub oo la magac baxay macmiilka joogtada ah. Waa kan mid ka mid ah howlwadeennada ka xarumaha ciyaaraha ee ku yaala magaalada Hargeysa oo ka warbixinaya adeegani macmiilka joogtada ah. Waa maxay barnaamijka macmiilka joogtada ah? Waa barnaamij casri ah oo ku diyaariyeen xarumaha ka ciyaaraha. Ujeedada barnaamijku waa si kor loo qaadi lahaa waalidiintu inay ciyaarsiyaan ubadkooda taasoo loo sameeyo qiimo dhimis. qaabka barnaamijka bixi $5 oo ciyaarsi muddo bil ah ubadkaaga goob kasta goor kasta iyo qalab kasta macmiilka joogtada ah aad baan ugu faraxsanahay waayo waa barnaamij ay cid waliba awoodi karto faa'iidooyin badanna ay ku jirto anigu waxaan ahay macmiilkii koobaad runtii barnaamijkan istiiwaan geliya marka wiilkayga ayaan u sameeyay barnaamijkan muddo bil ah baan istiiwaan geliyay runtii aad baan ugu faraxsanahay waxaana jecelay doorka ku xigta inaan muddo 3 bilood ah istiiwaan geliyo sida gaarka u imaada xarunta ka waxaan ku faraxsanahay barnaamijkan cusub ee noo keeneen ID card ka carruurta loo sameeyay muddo bil ah oo $5 la bixinayo qiimo dhimis ah barnaamijkaas baan ugu faraxsanahay waxaan nahay hooyooyinka carruurta sida gaarka oo la socda ilmahaagana maskaxiyan iyo jir ahaanba inaad dhistaa ma danaynaysaa inaad ka mid noqotid macmiilka joogtada ah tag xarumaha kala duwan ee ka wixii faahfaahin kala xiriir nambarada hoos ku qoran haddaba ha moogaanin jaaniskan qaaliga ah oo booqo xarumaha ciyaaraha ee ka si aad isu diiwaangeliso bisha oo dhan ku ciyaarsay ilmahaaga $5 oo keliya wixii faahfaahin intaasi dheerna kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada shaashada ka muuqda